السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وعلى وناسنا لما أنت من مركز دولة كشتان هل كان هذا الترفيه وتضوات كمان أنا قد أوثان ما يعي واحد شيء ظاهر يدي الدهين دونا وركا قليل دي بدونا عاودي هينو وركا عاو حود ورهم مدحونات مريد سمال المدن عبد الرحمن عبد الله عرو أيام ما أنت شبه اللولاري حركة هل كان سمى مدحوني هوري يسمونا اسمنا السلاميين مدحوني هوري مريد سمال المدن الظاهر يلا كاهن iyo golaha guurtida baarlamaanka maxkamadda sare iyo cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ayaa ku jirta isla goobtaas halkaas oo midba kale isku marxabaysiinayeen dardaaran una ku jiday halka madaxweynihii hore Daahir Kaahin uu halka ku dardaarmay in laba xaalo khadka la saa qabyaaladda iyo siyaasadda aan madalka lahayn ee marba sii socotay soo socotada ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa shir ku yeeshay dalka Turkiga halkaas oo wararka ay sheegayaan in lagu dulsiyo xeerkii ay wada dhigteen Somaliland iyo Itoobiya kaasan wali warar sugan laga haysan wixii waafahina xagga dambana hadii Ilaahay ka dhigo idiga sheekeyn doona ama idiga sheegi doona dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal foolka la gashay Jubaland halkaas oo ciidamadii Jamhuuriyadda Soomaaliya federaalka lagu jabiyay dhinaca kale wararka caalamka waxa uu daawaray بشار الأسد أو خد كلا جساري هالكاسو إذا ماذا شبه هذا اللي ورجين تلك سوريا هبين وعنا وناس مرة بعدين مستحد بحال السلو هذا وحي أرمي فريق مالناو هسنا حاجة وصلنا ولا فكرة هالكلام هذا التيفي ما أنت سنة هذه لبض يكون يلبي تبون لبش لبي ترى لبي تبون كيدي لبض يكون أفريقيا باطل أي لولاري لحبنا عصب إيش مريد اسمه المدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مدن عبد الرحمن عبد الله عرو أيام مدلبية توصلنا وسهل قمي الكرسي قال لها halkaas mar hore laga guuleystay ahayd 2017 codadka xeero lagu guuleystay ayaa 250 halka maanta ku guuleystay 750 iyo badh madaxweynaha ayaa laga rajeynayaa inuu sabab calaalo dawlad tayadeedu aad u sareyso tiradeeduna ay yar tahay halka dadka qaar leeyihiin waa in qof kasta ka dhex muuqda wali alaanka isbahaysyada labada xisbi waa wadani iyo kaahe ayaa iyaguna labada dhinac kala qodoreynaya inay waafaq ka helaan bulshada u socodaysa qaarkood ayaa iyaguna indha taag wali alanka ay sugayaan oo dhiga taagayaan way cidii la soo magacaabi lahaa wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa sheegay wali in dib loo dhigay wasiiradii la soo magacaabi lahaa ilaa ay tiri Britain laga warsugayo dhinaca kale madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa halka qodobo ka jeediyay kaftan isku xal marina halkaas oo lagu dhaariyay maalintii Sheekh Cabdiraxmaan Ciro uu ku dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda waxaa lagu macasalaamiyay madaxweynihii hore halkaas isoo lugeynaya kaga baxay sunnahaas oo soo taxnaa tan iyo xilligii Daahir Kaahin ee uu ku wareejiyay Axmed Maxamed Silaaye Ilaahay naxariisna ku raabiye madaxweynihii hore Axmed Maxamed Silaaye ayaa isaguna ku wareejiyay Daahir ka wareejiyay mudane Muuse Biixi Cabdi halka maanta isaguna ku wareejiyay Cabdiraxmaan Ciro Somaliland ayaa qori isku dhib tan iyo xilligii wixii ka dambeeyay Daahir xilligii ka dambeeyay Allah u naxariistay dowladii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal daarta ayaa waxa halkaas goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha golaha guurtida maxkamadda sare jarayaasha ciidamada halkaas oo lagu magac celiyay guddiga komishinka ciidamadii qaranka dadkii safafka ugu jiray hambaliyada bogaadii madalkoodu ahaa in Somaliland ay noqoto dal dimuqraadiya walow xilliyadii la soo dhaafay ay Somaliland safgarasho la'aanta ka taagnay ay ahayd habka doorashada halkaas ay guddiga kamida beelaha Somaliland oo habar jeclaay ay go'aamiyeen in xilligaas saas loo galo waxa la rajeynayaa xilliyada soo socda inay ka heshaan siyaasiyiinta xilliga iman doona golaha dhinaca kale bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa aad iyo aad u soo dhaweysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro halkaas oo ay hambaliyay bogaadin ugu direen kuwa ku filan daafaha dawladda magaalada joogna Manchester UK iyo dhammaan caalamka halka ay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland wali ku jiraaye waxa iyaguna halka ku sugnaa safiirka fadhiya geeska Afrika Soomaaliya Mareykanka safiirka fadhiya United Kingdom safiirada Europe iyo jalanka ciidanka u qaabilsan geeska Afrika ee Mareykanka dhinaca kasta eegtaba Somaliland waa mid amariyada iyo bogaadinteedu daafaha caalamka qabsatay halkaas oo la filahayn in doorasho aan dal aan la aqoonsan qoobsan ka doorashadii inta leeg markii xilligii ololaha ayaa isaguna ahaa mid aad iyo aad bulshada ugu reebay mid aad iyo aad indhahooda iyo maskaxdooda ugu reebay habka ay u ololeynayeen halkaas oo islaha midda kale uu shiidi doona markay go'aamada soo baxeen balse
natiijada ayaa ahayd mid degdega markiiba. dhinaca kale madaxweynaha hore jamhuuriyadda somaliland mudane daahir yaale kaahin ayaa ku tilmaamay doorashada inay tahay mid muqadas ah loona baahan yahay in halkaa laga sii hambaqaado, halka uu ka digay in doorashada jamhuuriyadda somaliland aanay dib mar dambe u dhicin, isu kordhinta walow isagu uu sheegay xilligiisi in loo kordhiyey aanay laisu kordhin, loona baahan yahayna inay ka heshiiyaan xagga uu qabyaalada ka digay oo loo baahan yahay qabyaaladii inaanay waxba dhisin. mudane daahir yaale kaahin ayaa hoosta ka xariiqay inaanay jirin wadahadalla soomaaliya somaliland mar dambe dhex mara muddo 12 sano wararka ay jireen wadahadalladaasi oo aan laga gaarin wax meedhala. madaxweynaha ayaa ku taliyey in arrinkaa la joojiyo lagana tashado heer qaran. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh ayaa ka degay magaalada ankara, halkaasuu kala heshiisay dhigiisa Mr. Abiy madaxweynaha dalka Ethiopia. heshiis soo taxnaa ilaa 2014 bishii koobaad oo dhex maray somaliland iyo Ethiopia ayaa Soomaaliya ka xanaaqday xilligaas. ilaa xilligaana Ethiopia iyo Soomaaliya isma soo horfarin, waa markii koobaad ee labada madaxweyne foolka falas yimaadaan. waxaa la sheegayaa in heshiisyada ay ka mid yihiin in la laalo heshiiskii somaliland iyo Ethiopia ay wada galeen, halka iyaguna ay ka wada tashan doonaan si mirabiyad ganacsi uga heli lahaayeen badaha Soomaaliya. lama garanayo wararkaasi halkay ku sugan yihiin, balse waxa wararka tibaaxaya ayaa sheegay ila ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay qaar ku maqaal laga qoraya Twitterka ama Reuters ayaa qoraya inay wararkaasi jiraan, balse iyadoo tafatiran wala xileel doona xilliga soo socda markuu madaxweynuhu jeediyo khudbadda uu ka degay dalka Soomaaliya. wararka ayaa sheegay dhinacyada kale in dowladda Soomaaliya iyadoo ay muhiimadeedu tahay inaan heshiiskaasi hore u soconin oo dowladda cusub ee Soomaaliya haatan leedahay aanay kala gorgortamin dowladda Ethiopia. dhinac kastoo eegtaba wixii wariyo caalka soo ridi baad idiga soo socodsiin doona haddii Ilaahay ka dhigo. dowladda Soomaaliya ee federaalka iyo ciidamadeeda qaranka ayaa ka degay goobo ka mid ah Jubbaland, halkaasoo isku fara saareen ciidamada Jubbaland ka marqaabta mudane Madoobe. wararku waxay sheegayaan inay isku fara saareen, balse laga qabsaday ciidamo garab iyo gaashaana ay saareen ciidan kala kulmeen. ma jirto ciidamada Soomaaliya meel iyagu ka guuleysay Jubbaland, balse waxaa jirta ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah oo u gashay dalka Kenya. wararka Jubbaland ka soo kordhay ayaa sheegay in haatan qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliya dib loogu celiyay gacanta xooga Soomaaliya jiradaas kuwaas oo ay hayeen ciidamada Jubbaland. wararka caalamka waxa ugu waaweyn Syria Bashar al-Assad ayaa xukunka laga qaaday qori caaradii, halkaas la waadeen jabhada ka yimid dhinaca Turkiga. ciidamada ka yimid Turkiga ayaa haatan gacanta ku haya kuwaas qaarkood ay markooda ka saareen ciidamadii ISIS, balse haatan ay adduunku cafiyay kuwaas oo Turkigu uu dheereeyay in dowlad cusub la soo dhiso. ra'iisul wasaarihii hore ee Syria ayaa ku qudbadiyay dalka inaan la bilaqaysan jabhadaha iyo isaguna isaga yimaadaan habkii qaab dalkan la isugu wareejin lahaa. jeelasha argagaxa mudan ee adduunku aad iyo aad ka weerargaxay ayaa Syria lagu arkay, halkaasoo kumanaan qof lafahoodii laga soo helay, qaarna weli aan ka lagu garab taagin si dhulka hoose looga soo helo ama looga soo saaro. jeelasha qaar ayaa weli aan ka lahayn ciddii furahooda iyo ciddii ku ahayd ilaalinaysay markii ay jabeen ciidamadii Syria iyaguna ku kala dhaqaajiyay. halkani waa Hadal TV habeenka weekii maalinka daawataan. magacay waa Xuseen Sheekh Daari oo idin mar labaad saddexaadba nabad qabyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.